Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan daawadayaal halkan waa mareegta wararkan idinku soo baahinay anabsiiniis waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka ee wararkan idin heynana waxaa kamid ah Somaliland oo shir degdeg ah ka yeelatay ololaha ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka wado gudaha deegaanada Somaliland. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka Soomaaliya oo la hor keenay shaqsi magaalada Muqdisho gawaarida ugu xiray jiray miinooyinka mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya go'aan ayaase laga sugayaa maxkamadda. Waxaan idin soo gudbin doonaa xogay ugu dambeeyay warkan ku aadan. Sidoo kale waxaad warkan aad ku daawan doontaan ururka Al-Shabaab oo dad u badnaa odayaal dhaqan iyo haween iyo caruur ka afduubtay deegaan ka tirsan gobolka Baay. intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka ee wararka Arabsiin iyo sanadinina saaxiibada qiimaha badanow guru diyaargarow iyagoo intaa ka faahfaahsan oo aan idin baqaadno balse marka hore waxaan idin ka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan oo aad ka mid noqotaan bahda ku xiran wararka warbixinada muuqaalada had iyo jeer sida joogtadana halkan ugu soo baahino markan qadar adeega bulshada. ogtahay macmiil adeegyada cusub ee ku soo kordhisay shirkadda hoggaanka waa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariga galbeed sanadkani cusub ee 2020 shirkadda bariga galbeed oo horeyba shacabka ku dhaqan geyiga uga barteen safar raaxo leh adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahay. markale kulan haboon saaxiibayaal aynu ku bilaawno xukuumadda Somaliland ayaa shir degdeg ah ka yeelatay ololaha ay dowladda federaalka ay ka wado gudaha deegaanada Somaliland. xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay shir degdeg ah isugu yeertay xisbiyada mucaaradka iyo odayaasha dhaqanka kaasi oo lagu daminayay xiisada ka dhalatay saami qaybsiga doorashooyinka. xiisadan ka dhalatay saami qaybsiga oo ay ka qayb tahay ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo adeegsanaysa xubnaheeda ka soo jeeda Somaliland ayaa guux siyaasadeed si weyn looga dareemay gudaha Somaliland. sida ay Arabsiya News ay hore ugu baahisay xogta ay heshay oo ku qabsooneed oo ku saabsaneed abaabulka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ka dhanka ah xukuumadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in lagu dhawaaqo midnimada iyada oo qiil laga dhiganaya cabashada ku aadan saami qaybsiga ay iminkan muujinayaan dadka degan deegaano ka mid ah Somaliland. madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo horkacaya dadaaladan ee lagu rabo daminta xiisada oo u muuqata mid ka sii daraysa markaa ka dambeysa ayaa waxa uu kulan degdeg ah la qaatay xubnaha xisbiyada mucaaradka ah ee Somaliland. xisbiyada mucaaradka ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhowaan waxay kala saxiixdeen heshiis ay ku sheegeen in gabi ahaanba lagu soo afjarayo khilaafka daba dheeraaday ee ka taagnaa qabsoomidda doorashooyinka ee lagu galo saami qaybsigii hore ee beelaha badan oo dega Somaliland ay ka muujiyeen cabasho xoogan. sida ay ogaatay Arabsiya News madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ee Somaliland kula qaatay gudoomiyaasha labada xisbi ee mucaarad ee wadani iyo sidoo kale ucud. kulanka ayaa sidoo kale waxaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku marti qaaday oo ka qayb galay odayaasha dhaqameedka Somaliland kaasi oo looga hadlayay qancinta beelaha qaadacay qabsoomidda shirka ah iyo sidoo kale daminta xiisada siyaasadeed ee soo cusboonaatay. waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray arrinta saami qaybsiga oo guux badan ka dhalatay gudaha Somaliland isla markaana u muuqata mid caqabad hor leh oo ku geedaaman qabsoomidda doorashooyinka oo ay hesho 3 xisbi siyaasadeed ee gudaha Somaliland ka dhisan. inkasta oo aan is-afgarad buuxda laga gaarin kulankii shalay haddana waxaa loo ballamay kulamo dambe oo ay xukuumadda federaalka xilli ay kulankii isku hor fariisan waayeen madaxda dhaqameedyada iyo xukuumadda oo la safan yihiin xisbiyada
mucaaradka ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya oo fursad u eg xiisadaasi ka dhalatay saamiga qaybsiga ayaa iyana lafteeda uga faa'iideysanaysa mucaaradka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo soo bandhigidda mowqifka ay ka aaminsan yihiin xubnaha kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland ee ku jira dowladda federaalka Soomaaliya oo ku qotoma midnimada. Somaliland ayaa waxa iyana ay ku doodeysaa in ay tahay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, isla markaana ay qaadatay xornimadaasi 1990kii 26 bishii 6 ayaana si rasmi ah Somaliland ugu dhawaaqday in Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day. maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxaa maanta ka soo hor muuqday eedeysane Mustaf Maxamed Xuseen, kaasi oo ku eedeysan ka mid ahaanshiyaha ururka Al-Shabaab iyo fulinta qaraxyada nooca lagu dhajiyay gawaarida oo uu maxkamadda ka hor qirtay in isaga uu ku dhajiyay 8 gaari. xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ayaa la yimid markhaatiyaal ay ku jiraan dad uu eedeysanaha ugu dhajiyay gawaaridooda qaraxyo ee ka badbaaday balse ku hanti waayay. sidoo kale maxkamadda ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaal muujinayay in ay duubeen kaamirooyinka CCTV xilli uu isaga eedeysanaha ku dhajinayay gawaari qaraxyo. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle Muumin Xuseen Cabdulaahi ayaa maxkamadda ka sheegay in eedeysanahan mar ay maxkamaddu ku riday xukun 5 sano ah oo uu dhameystay, balse loo sameeyay dukumiinti cadeynaya in xukunkii maxkamadeed uu dhameystay isla markaana bulshada uu ka mid yahay. hase yeeshee dukumiintigii la siiyay uu sheegay in uu si qaldan u adeegsaday isla markaana ugu adeegay ururka Al-Shabaab. bal wuxuu ka dhigtay ID card ama mataqaana aqoonsi oo dawladda ku dhex joogo mataqaana dhibaatana uga dhex sameeyo. samaxayla qof yani shabaabnimo ku cadaatay la xukumay xukun soo dhameystay ee warqadii xukunkii inuu la xukumay soo dhameystay cadeynaysa wata haddaana fal dambiyad lagu qaban wuxuu magaalada ku dhex joogaa si caadi ah muwaadinka caadi ah u joogo u dhex jooga wuxuu u isticmaalay eedeysanaha xukunkii 5 sanaha ee uu dhameystay ee uu xabsiga ka baxay dukumiinti uu ku dhex joogo dawladdu ku dhex maro ayuu u isticmaalay. Generaal Cabdulaahi Buule Kemi, xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanahan lagu xukumo xabsi daa'in. waxa uu na cadeeyay in eedeysanahan uusan ka waantoobin dambi uu hore u galay. dhammaan intaas markii la isku daro waxay cadeynayaan sida uu khatar ummadda ugu yahay eedeysanaan haatan xiran oo maxkamadda hor taagan, kaasoo haatan ka hor isagoo shabaab ah oo qarax baawur ku dhajiyay lagu soo qabtay lana hor keenay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ku xukuntay 5 sano xabsi ciidan maadaama ay dhimasho iyo dhaawac ka dhicin falkii lagu keenay. 5 sano ayuu soo dhamaystay, dib buu ugu laabtay. maanta wuxuu marayaa 8 qarax inuu afkiisa ka qiran yahay, qaarna lagu soo qabtay. sidaa darteed maadaama nafta Soomaalida oo halis ku yahay ninkan, nafta oo halis ku yahay oo uu yahay dambi caadayste aan marnaba ka soo waantoobaynin, waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabta u qalanta oo ah madaxa ku furto xabsi daa'in inta uu nool yahay. maxkamaddu waa mahadsantahay. qareennada u doodaya eedeysanahan ayaa maxkamadda ku soo bandhigay in eedeysane Mustaf ay qasbeen ururka Al-Shabaab. waxa ayna cadeeyeen in loo soo bandhigay muuqaalo muujinaya in la dilay rag saaxiibadiisa ah oo isaga la shaqeynayay ee sameeyay amar diido dhinaca shabaab ah. gaar ahaan qodobka 23 waxa ka hadlayaa qofka hadii iraadadii doonistiis wax ka baxsan sameeyo oo inta la qasbo asaga oo aan doonayn waxaas inay sameeyo ayaa ka hadlaya. wuxuuna leeyahay ciqaab lama saari karo qof oo qasad iyo doonis aan wax ku sameeynin. Mustaf wuxuu ahaa qof la qasbay oo la tahdiidiyay oo la yiri haddaadan ficiladaani sameeynin shalayto waa lagu xiray waa lagu soo daayay sax, laakiin maanta haddaadan la shaqeynin Mustaf waa ku dileena sida uu noo sheegay annaga muwaakiliintiisa ahaan in la tusiyay dad la dilay
oo isaga la saaxiibo ahaa oo barnaamijyadaas iskula jirjireen marka maadaama tahdiidkaas uu ku dhacay cabsi ayaa gelisay sida qiraalkiisii ku cadeed maxkamaddu waa mahadsantahay waxaan ku codsanaynaa in Mustaf eediisa loo qafiifiyo maxkamaddu inay ciqaabta noo fududeyso qodobka 4aad xarafkiisa ga ugu dambeyntii fadhiga maxkamadda waxaa soo xiray gaashaanle dhexe Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida waxa uu cadeeyay in go'aan ay ka soo saari doonto maxkamadda eedda loo haysto eedeysanaha al-shabaab ayaa afduubtay 60 qof oo isugu jira odayaal haween iyo caruur ah wararka aynu ka helino gobolka Habay ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ay dad badani ay ka afduubteen tuulooyin hoos yimaada degmada Buur-Hakaba ee gobolka Habay dadkan ay al-shabaab afduubteen waxa ay tiradooda lagu sheegay inay ka badan tahay 60 qofood oo u badan odayaal iyo haween iyo caruur dadka ku nool ee deegaanka dhacdadan ay ka dhacday hoos yimaada degmada Buur-Hakaba sida ay marar badan halka laga afduubtay dad marka ay halkaasi kala afduubteen dadka ku nool deegaanka oo ay dhacdadu ka dhacday hoos yimaada degmada Buur-Hakaba isla markaana halka laga afduubtay dadka ugu badan ayaa Arabsi News u sheegay in al-shabaab dadkooda ay la-adeen dhanka deegaanka dadkan oo waramay oo codsaday in magacyadooda aan la shaacin warbaahinta loo adeegsado ayaa isticmaalay sababa loo afduubtay dadka nooga sheegay sababaha dadkaasi loo afduubto waxa noogu sheegay in ay salka ku hayso dagaal maalmo ka hor ka dhacay goob warbiyood ah oo lagu murmay sida dadka ay noo sheegeen al-shabaab ayaa berihii ugu dambeeyay goobtaasi waxa ay isku dayeen in ay ka iibiyaan dadka deegaanka waxaana arintaasi ka biyadiiday oo dagaal ku qaaday dhalinyaro is-abaabushay oo kasoo horjeeda ururka al-shabaab guud ahaan warkii aad ka daawanaysaan Arabsi News waa inaga ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xiga nabadgelyo